إيمانك يا عملك الصالح إنك كنت وسناتك الاستمرارية إنك تشوف تيسيد وناجة إن هذا نقولين قف وعنية عرفت أنت بدل واحد أكرر روغان الثعلب بيشجع إلى هذا ما شاء الله إلى هذا ضوعه وحي وقارصنا الصوت توس وما أبارطبه إلى هذا وين دبعتها تبيتنا ويور وريكتها بينها سيدي وحان توس وصعني waxaa laynaga reebayaa markaa weecashada waxaa laynaga rabaa inaynu qumanaano oo diinta ku qumanaano oo ilaahay jidkiisa ku toosnaano ilaahay intaynu rabbi kala kulmayno qumanaantu waxay u baahan tahay dadaal badan iyo aqoon iyo cilmi ولذلك waxay yiraahdaan min طبع الإنسان aadanaha dhaqankiisa ama abuurkiisa waxa ka mid ah bay yiraahdaan atadabdub sensual inuu socdo weecasho bini aadamku bay yiraahdaan dareemadiisa iyo noloshiisa inuu joogteeyo waa ku adagtay wuxuu doonaba ha noqdo shaqo ha noqoto mashaacirta iyo dareenka iyo ixsaaska ha noqdo nashaadaadka iyo activity-gaad qabanaysa ha noqoto bini aadamku joogtaynta inuu waxaa joogteeyo wax fudud maaha soomaaligana isaga dhagaxba kaga adag maxaa loo joogtayn kari waaye kow waa mowduuc alimtixaan waa meesha laynagu itixaamay ee la rabo ma ku guulaysanayna mise waa ku dhacaynaa sidaa laynoo abuuray waxaana lagu talagalay in layna itixaamo aadanuhu wuxuu leeyahay shahwaatu nafs waxyaaba badan oo naftu ay jeceshahay waxaa kaloo ku xeeran shayaaiin اljini walins kuwa dadka lumiyo badan oo bini aadamkana ka mid ah jinkana ka mid ah bini aadam dadka lumiyo tiro badan ayaa kugu xeeran shayaankii shayaanka ahaabaa kugu xeeran haddaba intaasoo dhan si aad uga guulaysan lahayd baa isweydiinta leh waxaana laynaga rabaa inaan naftu inaga bixin ilaa iyo inagoo muslimiina mooyaane laba aayadood oo fii kitaab illaahi ku yaala suurata ali cimraan iyo suurat albaqara ilaahay muxuu leeyahay fii suurati albaqara yaa baniy in allaha astafaa lakum addiin falaa tamuutunna ila waantum muslimuun fii suurati ali cimraanna يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي وحين لي هجيريوننا إذا كان مسلم هاي جيري ده we don't know قرن ما ينقر إيمانش هذا سي سعدا قاعد كوتشير ما ودناها إسكات هاجي ما معلومات صوب وكاندو ده قرن ما يساعدوا إيمانش mar haddaanad garanaysaad u dhimanaysa macnaheedu waxa weeyaan noloshaada toosnow ha geeriyoonin baa lagu yidhi adigoo maxay aan muslim ahayn yay geeridu kuu imanni wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ba fii suurati alxijrina ilaahay leeyahy rabbigaa caabud inta geeridu kaaga imanayso haddaba maadaama ay noloshu sidaa tahay waxaynu u baahannahay inaynu in badan ku xisaabtanno war ma toosannahay in badan inay isweydiinno aqoonta ah sidee loo toosnaada in badan isweydiinno waa maxay asbaabta kugu dhiiri gelinaysa ama kugu xejinaysa inaad toosnaato weliba cajabta nafta waxaa ku tusi kara nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay basharka kuu ka doortaya ayaa waxay saxaabadiisi tilmaamaysaa umu salama iyo anas ibnu maalik iyo waxa ay tilmaamayaan saxaabadii nebi maxamed ducooyinka nebi maxamed umu salama markii la weydiiyey gurigaaga markuu joogo waxa ugu badan uu nebi maxamed ku ducaysta waa maxay waxay ducadan soo socotay sheegtay anas ibnu maalik wuxuu isaguna leeyahay yuksir nebigu wuu badin jiray inuu yidhaahdo maxay yaa muqalliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinik إله قلبية جديو يا مغلب القلوب إله قلبية جديو ثبت قلبي على دينك قصق دين هذا قلبي جاي جابوا النبي محمد كده عيسانية
ilaahu weecweecshadaygaa ilaali, ilaahu isug sida badan habaadka iyo istiqaamadu isku macno dhadhow bay tilmaamayaan. markaasaa saxaabadii waxay dhaheen yaa nabiy allahi aamanaa bika wa bima ji'ta bihi fahal takhaafu calayna, waanu ku rumaynay adiga iyo wixii aada la timiba waanu rumaynay, ma waxaad nooga cabsi qabataa miyaad nooga cabsi qabtaa wax kale? wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, waa su-aasha dad badan, rag badan baa isle haddaad waa diintana waad garanaysaa, ilaahayna waad garanaysaa, maadaa gaaloobaya ama maadaa xumaanaya? wadaado badan baa dhulkan yimi oo is yidhi waa riyaad saalixiinka iyo qur-aankaba waad soo dhigatay, ma gaal baa wax ku yeelaya? rag badan baa libdhay oo aan lahaynin imika meel ay ku dambeeyeen. sababta waa maxay? naftooday kalsooni bideen. waxay is yidhaahdeen war waad isku filan tahay. badda se markuu dhumbaday wuu isku filaan waayey. markii badda nin waliba yimi isku filaanshihii waa la waayey. saa daraaddeed bay saxaabadii waxay leeyihin ilaahay rasuulkiisiiyo waanu ku rumaynay, wixii aada la timina waan rumaynay, miyaad noo cabsi qabtaa? nabigu wuxuu ku yidhi nacam, ina alquluuba bayna isbacayni min asaabic illaahi yuqalibuha kayfa yashaa. waa idin cabsi qabaa buu nabigu yidhi oo qalbiyada bini aadamku labada farood allay ku jiraanoo siduu doona buu u rogrogaa. siduu doona u rogrogaa waa maxay? haddaad wanaagga u janjeersatana ilaahay waa kuu kordhinayaa, haddaad xumaha u reebtana falamaa azaaquu azaaqa allahu quluubahum taa kugu dhacaysa. markay weecdeen ayaa ilaahay qalbiyadooda weeciyey. sidaa awgeed ayuha alaxiba, bal u fiirsan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay qur-aanka inagala hadlaya oo waxaa la leeyahay wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayka litaftariya calayna gayra waidan latakhaduuka khaliila lowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shayئa qaliila إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. سبحان الله. waxay ku dhowaadeen baa ilaahay leeyihi nebi maxamed oo ina ku fitneeyaan can iladii awxaynaa ilayk, waxaanu kuu soo waxyoonay shayaaiinuljinni iyo insigu inay kuweydaariyaan bay ku dhowaadeen litaftariya calaynaa gayra, si aada noogu kor abuurato waxaanu kuu waxyoonay waxaan ahayn. hadday dhici lahayd inaad xaggooda u soo yaro weecatana latakhaduuka khaliila baa ilaahay yidhi, saaxiib bay kaa dhigi lahaayeen. yacni gaalada ilaahay wuxuu tilmaamaya waxay isku dayayaan inay ku lumiyaan. haddii aada markaa weecato dhankooda u weecatana walan good, waa lagu soo dhoweynayaa, nin qoyska ku soo biiray ayaad ka mid tahay baa la leeyahay. ilaahay baa markaa nebi maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam walowlaa an habatnaak, haddii lala-yay inaanu anagu ku sugnay baa ilaahay leeyahy laqad kidta tarkanuu ilayhim shay-an qaliila, waxaad u dhowaatay inaad in yar xaggooda u weecato. haddii nebi maxamed ilaahay sidaa ka sheegay, cidda nebi maxamed ka sokaysa maxaa ka fili? sheekh iyo shariifba. haddii nebi maxamed ilaahay sidaa uu ka tilmaamayo, ciddii ka sokaysay nebi maxamed maxaad u malaynaysa? ilaahay markaasuu leeyay idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat. haddaad shaygaa raaci lahaydna waxaanu ku dhadhansiin lahayn baa ilaahay leeyay subxaanahu watacaala cadaab nololeed iyo mid aakhira iyo mid walba ood dhadhamin lahayd, wax nooga kaa gargaarana maad hesheen. haddaba ayuha alaxiba, waxaa laynaga rabaa inaynu toosnaano oo ilaahay wuxuu ina leeyahy walaa takunuu kalatii naqadat gazlaha min bacdi quwatin ankaata. carabtu waxay sheegaan habar mooyene waa laydya in wax u dhinmeene, habar bay sheegeen gelinka hore wax tidci jirtay, xadhkay soohi jirtay, gelinka dambena shaqadeedu waxay ahayd inay furfurto. marka maalin walba waa shaqo joogta ah. gelinka horena waa tidicdaa, gelinka dambena waa maxay? waa furfurtaa. ilaahay baa tii ugu maahmaaho ilaahay wuxuu yidhi walaa takunuu ha la mid noqonina kalatii naqadat gazlaha min bacdi quwatin ankaata, tii gelinkii hore tidicdaya toshay, gelinkii dambena furfurtay
تهكو بيرنا با إلهينا ليه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة تكبر أعمال صالحة سماية دبتنا استصئية اسم قشيئية معاصئية كبائر كبرية قاربا وضد الصحة هيا كدي من الرات كودي دبو راعونا منافق نما يرد كلها والعياذ بالله. وحيث ويدين تله تصنات وحدك ولي بدأ يرتينينا لبابا هيسطا انت يدوري تبجر كيري نقدات كينو هينا قرآن كقيب ملعوضة تق قرآن كقيب بين قوة الله دوري تبجر مركو قادنا مساجد كما هو بالمرة قرآن قيب السباب كاسكداي هدو قيبين وإلا به هدانو قيبين أول بوحبا كما قيبين ودنا مرة حقي بلدو كتاقنت مركا نبي محمد باوحو لي عليه الصلاة والسلام وحدي عندهم وقت يصبح الرجل مؤمنا نينكو اي دعي دونتو انو وابريستو اسغو مؤمنة ويمسي كافرا وقلبيسان دونو اسغو كافرة قالك هو مؤمن قالك دمنا واقع عجب قالك هو مؤمن وهذا مسألة بتكلمه قالك دمنا اعمال لقو قالوا بي وضع يعني توصنان ضد كلمة لها ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا وهو برسالة يسوع قال هذا يعني هو محي إسلام لماذا نقوق منانين قال لماذا إسلام لماذا بودح صعدا يبيع دينه بعرض من الدنيا ما حكوا كلفي دينتي سكو قطنا يرى الدنيا أبو النبي عليه الصلاة والسلام دينتي سي أيكو قطنا يا محي الدنيا إذا هو رياله توصنان تحفظ الله inaad naftaada iyo shaydaan iyo jin iyo insiba dagaal la gashaa haddana aada warmooga tahay wax fudud ma aha. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa qaar culamo ahaa culamo waaweyn oo ka siibtay ilaahay kitaabkiisii watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayatina fansalakha minha faatbacahu الshayطaan fakana min alghaawiin baa ilahay yidhi waxaa dadka ku akhridaa xasuusisaa baa ilaahay yidhi warkii kii aanu siinay aayaadka iyaga baa ilaahay leeyihi. culamada barh baa yidhaahdaa nin mustajaabu dacwo abuu xataa ahaan jir ismullaahi lacdan ku yaqaanay bay qaar sheegaan. wax kasta haato waa nin ilaahay aayaadkiisii la siiyey wax garanayey. isagoo wax garanaya ilaahay muu odhan wuu noqdaye waxaa yidhi fansalakh waa ka siibtay kaanamaa haragga neefka marka haragga laga saarayo soo lagama siibo كأنما ور كتابكم ولا ور سوتشوك السنة ومحي كم روح صنايا فأتبعه الشيطان بين هيري شيطان بقى راعي ساقي بابا معلم نقضه الشيطان كده بصعده فكان من الغاوين. إذا أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام دول بوت الماما انت عمل ونفسن سمايان عمل كأهل الجنة سيدا يوضان marka dambuun dib uga noqonayo camalka ahlu naarka samaynaya oo naarta lagu tuuri doono. haddaba ayuha alxiba qof kastoo mu'mina oo dunida jooga umniyaadkiisa waxa uu rajaynaya laba shay baa ka mid ah cimri dheer iyo camal wanaagsan baynu jecelnahay. qofna ma jecla in la yidhaahdo nafta hadda ha lagaa qabto. qof waliba in la ziyaadiyo bahashaasi oo aan hore loogu imanin buu jeceliyay. isla markaa qof waliba wuxuu jecelaya camalkiisu inuu maxay حانو النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس من طال عمره وحسن عمله حديث الترمذي شيخ الألباني صحيح قلت لما dadka waxa uu khayr badan ninka cimrigiisu dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado. haddaba ayuha alxiba garan maysid cimrigaagu inuu dheeraanayo inuu gaaban. garan maysid khaatimadaadu waxay noqon doonto. laakiin haddaa waxaad garanaysaa inaad jidka iska saaraatid oo ku toosnaatid lacalla adigoo qumanuunin mar naftu kaa baxdee lacalla mucawiqaadka waxyaabaha dadka jidka weydaariyana waa tiro badan yihin. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa maalmaha dambeeya ayaamu sabriga la yidhaahdo diinta qofka haystaa uu kontan idinka idinla mida la ajar yahay baa layidhi. waxaanu ku tilmaamayaa sidii nin dhuxul daba haystoo kale u ekaan doonaa.
yani waxaa looga dan leeyahy dhuxusha daba la sheegay waxa weeyaan tacab iyo feejignaan tiro badan bay u baahantay. ilahina qur-aanka wuxuu inoogu leeyahay faاstaqiimuu ilayhi wastakfiruuh, waryaadhan xagga rabbi u toosnaada. faاstaqiimuu ilayh wastakfiruuh, wixii dembi idinka dhacana ilaahay subxaanaه wa tacaala dembi dhaaf weydiista. qur-aanka 2 meeloodoo ka mid ah ayaa waxaa ku soo arooray dadka ammaan la ammaanayo iyo ajarka ay leeyihin weynidiisa si laynoo jeclaysiiyo. oo waa maxay? ina aladiina qaaluu rabbuna allah, kuwa yidhaahda baa ilaahay yidhi allah noo rabbiya, rabbigayo waa alle. uma istaqaamuu baa ilaahay yidhi, dabeetana ku toosnaada weedha allah ii rabbiya. macnay sheegaysaa, macnaha ku toosnaada baa ilaahay leeyihi. kuwaas malaa'ig baa ilaahay ku soo dejinaya, malaa'ikatu raxma. oo maxay leeyihiin marka nafta laga qabanayo 2 shay baa qofka bini aadamka markuu dunida ka baxayo warwar ku haya. meesha uu ka tegayaa warwar bay ku haysaa, oo talow caruurtii iyo reerihii iyo dadkii iyo maxay noqon. ilaa adduunku isku dhamma ma lehe, maraad sileeday shaqadii waa dhammaysay yaa nafta kaa qabta ma jirto. mar kasta oo wuxuubaad sileeday war waxbaa dayacanay, talow siday noqon kuwani. waxaad kaloo ka warwaraysaa oo kaaga sii daran, war talow maxaa kaa horeeya, war wixii aad samaynaysa alla ma kaa aqbala, war ma kuwa naartaad noqon mise kuwa jannadaad noqon, xaalkaas siduu noqon. warwar baa kugu jira. ilaahay wuxuu leeyahay dadkii toosnaan jiray malaa'ig baa u imanaysa u bushaaraynaysa. maxaa loogu bushaaraynaya? anlaa takhaafuu walaa taxzanuu, ha cabsanina oo waxa idinka horeeya ha ka cabsanina baa laleeyahy. kuwa nabadgala ka midti, ha tiiraanyoonin oo wixii aad ka timi ha ka murugoonin baa la ydhahaa. rabbigood bay leeyihin waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun, jannadaan idiin ballan qaaday ku bushaaraysta. fii suurati اlaxqaafna sidoo kale baa ilaahay leeyihi ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu, kuwa yidhi allah noo rabbiya ee ku toosnaaday falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun baa ilahay. cabsiyo korkooda maha oo waxa soo socda kama cabsanayaan. walaa hum yaxzanuun, murugiyo tiiraanyana ma hayso oo wixii ka tegay ka murugoon maayaan. ulaa'ika asxaabu اljannati khaalidiina fiiha jazaءa bima kaanuu yacmaluun baa ilaah yidhi. kuwaasi waa reer janno, waana ku waaraya iyadoo lagu abaalmarinayo wixii ay soo camal fameeyeen daraaddeed sababtii. waxaa ilaahay qur-aanka inoogu sheegayaa taasi waa aakhiro iyo waxa la helayo. adduunka ilahay wuxuu ina leeyay waan low istaqaamuu cala اطariiqati laasqaynaahum maءa gadaqa linaftinahum fiih waman yucrid can dikri rabbihi yasluku cadaaban sacada. hadday ku toosnaadaan baa ilaahay leeyahay jidka rabbi, hadday ku toosnaan lahaayeen waxaanu ka waraabin lahayn baa ilaahay leeyahay biyo badan oo yani badhaadh iyo barwaaqaanu ku noolaan lahay. roob iyo abaar iyo mushkilada waxaynugu itixaamay, toosnaantii baa laynaga waayay. haddaad toosnaan lahaydeen baa ilaahay leeyahy waa laydin badhaadhayn lahaa, biyaha waa ka dhargi lahaydeen. laakiin adduunina mar kastaba imtixaan ya haddana alla waxaynu noo sheegay marka layna dhargiyana ilaahay wuxuu ihi linaftinahum fiih, isaga laftiisu waa imtixaan kale. inta badan bini aadamka muslimka ahay imtixaanka dhibta ah wuu ku toobad keenaa, faqrigiisa u muuqda. marka dhibtu ka qabsato yaa rabbidaa badata, dheragta si rabbiba waa la ilaabaa. inta badan labada imtixaan, imtixaanka dheragta khatarsan. imtixaanka dheragta kibir baa bilaabma, iyo qooq iyo balacab iyo kibir oo dhan baa bilaabma. soomaalidana waa taqaaneeno xataa colaadahooda iyo dagaaladoodu markay abaartu dhacdo way isu nasan jireen, ya allah bay odhan jireen. marka gugu u da-ana rabshadaa bay bilaabi jireen. ilaahay wuxuu ina leeyahay markaas linaftinahum fiih waman yucrid can dikri rabbihi yasluku cadaaban sacada. ninkii ilaahay xuskiisa ka jeesta waxaa la marin oo la gelin cadaab adag fuuritaankiisu. haddaba ayuha alaxiba,
ilaahay wuxuu ina leeyahay isagoo nebi maxamed la hadlaya laba aayadood oo kale fastaqim kamaa umirta fastaqim kamaa umirta baa ilaahay nebigu ku yidhi wastaqim kamaa umirtana fii suurati shuuraa bay ku jirta fii suurati huud ilaahay wuxuu ku yihi fastaqim kamaa umirta waman taaba macak walaa tadqow u toosnow sidii rabbi ku amray hadda waa nebi maxamed cidda lagu leeyahy suuratu huud aayaadkan intaan laga warramin aayaadka ka horeeya wixii nebiye soo qabsaday baa ilaahay ka warramay nabiyullaahi nuux nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi saalix nabiyullaahi shucayb nabiyullaahi luut nabiyullaahi muusa waxaasoo ambiyaaba qisaskooda ilaahay kaga warramaya nabiyullaahi huud iyo tolkooda wixii kala qabsaday markii ambiyadaa laga warramay iyo wixii lagu sameeyey iyo wixii la kulmay iyo waxay dhib arkeen ayaa ilaahay nebi maxamed markaa awaamir siiyey nebi maxamedna waxaa la yidhi fastaqim kamaa umirt waman taaba macak walaa tadqow inahu bima tacmaluuna basiir u toosnow baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala sida rabbi ku faray adiga iyo inta kula socotee ilaahay u toobad keentayba nebi maxamed waxaa laga sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhaahdo shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa qabla almashiib wakti ciro anigu aan gaadhin timan ciro aan badnayn baa nebiga ku yaalay laakiin nebigu wuxuu leeyahay waxoogaaga kanna waxa iga soo saaray waxa i cireeyey huud iyo walaaladeed wa fii bacdi riwaayaatna wa akhawaatuha min almufasal qur-aanka hoose riwaayo kalena waxay tilmaamaysaa shayabatnii huud wاlwaaqicatu wاlmursalaatu wacama yatasaa'aluuna waida shamsi kuwirat kuwaas baa i cireeyey buu nebigu leeyahy calayh الsalaatu wasalaam qur-aanka uu sheegayaa qiyaame iyo waxa dambeeyaa u badan wuxuu ka warramayo waxa dambeeya aakhiro dee waa maalinta ilaahay ku tilmaamay wildaanku kuwa dhashay inay ciroobayaan shayban inay noqonayaan haddaba kuma qofka la leeyahay toosnow man huwa inahu aclamu اlkhalqi biاllah waa dadkaba ninkii rabbi u yaqaanay ee ugu cabsi badna ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay maxay toosnow wاstaqim kamaa umirt walaa tttabic ahwaa'ahum wqul aamantu bima anzla allahu min kitaab waumirtu liyacdila baynakum allahu rabbuna warabukum lana acmaaluna walakum acmaalukum laa xujata baynana wa baynakum allahu yajmacu baynana wa ilayhi اlmasiir waxay culamadu dhahan waa 10 jumladood oo nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam lagu amrayo ayuha alaxiba toosnida iyo qumanidu jawaamic اlkelimka nebi maxamed la siiyey calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay nebi maxamed wuxuu siiyey jawaamic اlkelim jawaamic اlkelimka waa maxay erayo kooban ayuu macno ballaadhan ku sheegaa sidan casrigan dadku khudbadaynayaan hadalka badan akhrinayaan nebi maxamed ma ahayn calayhi الsalaatu wasalaam war kooban oo dadkuba intuu qaybo xambaari karo laakiin macnahoo dhan sida buu sheegi jiray waraadu kooban nin baa u yimid sufyaan ibnu cabdalla athaqafi saxaabi la odhan jiray dabeetana wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo qul lii fi lislaami qowla laa as'alu canhu axada bacdak ilaahay rasuulkiisiiyo islaamnimada war iga sheeg aanan qof dambe weydiinin wa fii riwaaya hayrak islaamnimada wax iga sheeg igu filaata waanan cid dambe warkiisa u baahanin nabigu calayhi salaatu wasalaam waa su-aal adag inta qof kuu yimaado ku yidhaahdo diinta wariga si aanan wax dambena cid weydiinin in igu filaato un maanta ii sheeg haddii lagu yidhaahdo meelaad kaba baadi doonto garan maysa laakiin nebi maxamed maadaama ilaahay jawaamiculkelim siiyey wuxuu sheegay erayo kooban oo ninkaasi wuxuu doonayay oo dhan xambaara wuxuu ku yidhi qul aamantu billaahi uma istaqim buu nebigu ku yidhi waxaad tidhaahdaa ilaahay baan rumeeyey kuna toosna warkaa marka intaa unbuu nebigu sheegay soo ma rabtid war inaan ku faro islaamnimada aanad cid dambeba wax weydiinin warkaasi wuxuu yahay buu nebigu yihi qul aamantu billaah
dheh ilaahay baan rumeeyey kadibna ku toosnow ku qumanow warkaasi raac karaamada ugu weyn dadka badh baa waxay dadku had iyo goor awliyada iyo wax marka warramayaan ninkii ducaal alla ka aqbalo waxay yidhahdeen waa weli karaamo hebel baa ka dhacday karaamo waxa u weyn in ilaahay kugu karaameeyo inaad toosnaato acdam karaama waa luzuum alistiqaama awliyanimadaada ugu fiican ee ilaahay uu ku siiyaa waa inuu ruux quman kaa dhigo ruuxaan weecweecsanayn oo wadada kolba ka baxayn afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahda am man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo inala hadlayo inoo talinaya xadiis saxiix wuxuu ku tilmaamaya istaqiimu walan tuxsu toosnaada mana dhammaynaysaan buu nabigu leeyahy yacni ma awoodaan inaa aydan in yarna weecweecan laakiin toosnaada waaclamuu waxaa ogaataan ana khayra acmaalikum alsalaa acmaashiina waxa ugu fiican camal la sameeyo bacda tawxiid salaad baa ugu fiican buu nabigu leeyahy hadday salaadi kaa dayacanto diini kaa dayacantay ogsanow istiqaamo waad ka fog tahay hadday salaadiba kaa dayacanto istiqaamo iyo adiga in dheer baa idin dhexaysa aayaadkii uu nabigu lahaa suuradduu lahaa way gaboojisaynaa waxyaabuu ku tilmaamaya waxaa ka mida ilaahay subxaanahu watacaala fastaqim kamaa umirta waman taaba maxaa ku jiray waaqim الsalaata طarafay الnahaari wazulufan min alleyl ayaa ka mid ahay waxaa samaysaan salaad baa u fiican baa rabbi ayuu nabigu leeyahy walaa yuxaafidu cala alwuduu'i ilaa mu'min weysana ma dhowrtoo ma ilaaliyo qof mu'mina mooyaane yacni islaamnimada waxyaabaa ugu fiican waxaa ka mid ah inaan weysadu kaa jabin hadday kaa jabto inaad dib u weysaysato musqulba haddaad weysaysato musqulba haddaad gashay inaad soo weysaysato inaad daahir ahaataa haddaba nebigu wuxuu inoo tilmaamayaa istaqiimuu walan tuxsu toosnaada mana dhammaynaysaa xadiidka labaadoo bukhaari iyo muslim uu ku yaala wuxuu nebigu yidhi sadiduu waqaaribuu waabshiruu sadiduu assadaad waa toosnaanta lafteedii ama isaabada waqaaribuuna almuqaaraba alqasd مثلا marka aad dhugtamayso dhugtanka soo ma taqaanin rasaas ama waran marka wax la wada liishaamayo la dhugtamayo waxaynu samaynaa meel baa calaamad yar leynoo dhigaa ama waxbaa la dhigaa dadkoo dhan wuu toogtaa laakiin mostly waxay u badan tahay dhibicda santarka qof iyo labun bay ugu dhacaysaa haddayga xataa kuugu dhacdo ka labaad waxaa laga yaabaa inaad dhinaciisa ku dhufato nebigu wuxuu ina leeyahy war waxaa samaysaan dhugtankaasi sadidu marka hore ku day inaad halka toosan la heshid dee xaggaa haysaga tuurin warag ee meeshii lagu dhugtamaye la eego ku dhaweena xataa haddaad santarka la weydo maxay duleedkeeda hareeraheeda ha ku dhacdo haddaa sidaa yeeshaan buu nebigu yihi dee bushaaraystana markaasuu nebigu wuxuu leeyahy waclamuu annahu lan yudkhila aljannata axada camaluhu ogaadana nina camalkiisu inaanu janno geynin yacni jannada ilaahay waa ka qaalisantay waxoogaa ka yaraynu samayno jannada ilaahay waa ka weyntay addunya wacasharatu amhaaliha jahanamiyiin kuwa ugu dambeeya ee janno soo gala ayaa waxay leeyihiin maxay adduunka iyo toban laabkii xagga hore raggii ka galay markaa maxay leeyihin acmaashaad shaqaysayna waa maxay 60 sano 50 sano aad waxoogaa wadwaday idan wax gooye maaha laakiin sabab bay u noqotaa saxaabadu markay yidhaahdeen walaa anta ya rasuul allah oo xataa adigu camalkaaguna miyaanu janno goonin qaala walaa ana buu nebigu yidhi ilaa an yatagamadanii allahu bimakfiratin waraxma ilaahay inuu naxariistiisa igu daboolo oo dembigayga dhaafo mooyaane anigana ma xataa camalkaygu ma gooyo waclamuu ana axabu alacmaal ilى اllahi adwamuhu wain qal laakiin waxay ogsoonaataan buu nebigu yihi ilaahay agtiisa camal waxaa loogu jeceliyey kuwa la joogteeyo istimraariyada istiqaamada
habaadka wixii ku sugma ayaa ilaahay agtiisa loogu jecelaya haba yaraadee acmaashaadu inay joogta noqoto. idan ayuha alaxiba, waxaa laynaga rabaa alsadaad walmuqaaraba, inaynu isku dayno inaynu barta asiibi karno, inaynu ku biro ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wakunuu maca asaadiqiin, ilaahay ka cabsada oo inta runta sheegaysa sidiiqiinta macooda ahaada. inaynu ku biro min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu llaha calayh faminhum man qadaa naxbah waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila. mu'miniinta waxaa ka mida baa ilaahay yihi kuwa rumeeyey waxay ilaahay ballan la galeen oo ku dhintay, iyo kuwa jidkii hayo waan waxba bedelin. ilahay wuxuu inoo tilmaamayaa falow sadaquu llaha lakaana khayra lahum. hadday dadku run sheegaan iyadaa u khayr badnaan lahay. ka run sheegaan waxay samaynayaan lain sadaqta allaha haddaad ilaahay u run sheegto ilaahayna waa kuu run sheegayaa baa layidhi. ilaahay ballankiisa haddaa oofisaan isna ballankiina waa idiin oofinaya. ayuha alaxiba, istiqaamadu waa dadaal, laakiin koo waxaa layna yidhi fastaqim kamaa umirt, sidii lagu faray. waxay culammadu yidhaahdaan markaa walaa tattabic ahwaa'ahum baa aayadda kalena ilaahay leeyay. macnaheedu waa maxay? istiqaamadu waa itibaace, ibtidaac maaha. toosnowdu waxaa lagu toosnaadaa wixii rabbi ku faray, oo waxa rabbi ku faray waa maxay? diintaa laga raadiyaa. hayse odhanin toosno waa bidac iyo wax cusub ha samaysanino, hayse odhanin camalka biiri. war intii nebi maxamed samayn jiray kama badin kartid. miyuu inagu jiraa cid nebi maxamed ka badin kartaa? may. idan intiisii baanad gaadhi karin, maxaad in kale raadcay? dadka barbaa waxay ama bidaca qaar ba xasana qaar ba sayi. bal horta ha inooba dambayso xasane iyo sayi-adeedube kollayba tii nebi maxamed soo kama fadli badna, tiina ma dhammayn karayno. saa daraaddeed bal markaa taa soo dhammayso aan baabka kale isweydiino. marka taa soo dhammayso aan baabka kale u nimaadayo su-aashiisa. 3 saxaabi walaa tatqaw baa ilahay yidhi, ha xodgudbinina. istiqaamada markaaynu rabnaa tacaabiirta iyo iminka isticmaalaan wasatiyay sheegaan. iyo kan wasatiyadii waxaa la sheegaya o dhan waa istiqaamada. oo waa maxay? waa walaa tatqaw walaa tattabic ahwaahum, taa labada aayadood ku jirta weeyaan. ha xadgudbin. ha xadgudbin marka layna yidhi maxaa loo jeedaa? 3 saxaabi ayaa guryihii nebiga tegey, markaasay waraysteen maxaa camal uu nebigu qaban jiray. markaasaa loo sheegay. waabay la yaraatay intii nebi maxamed. haddana si kale ay u fakereenoo waxay yidhaahdeen war nebi maxamed isaga ilaahay baa dembigiisii hore iyo kiisii dambaba dhaafay, isagu daa walba dembi ma lahayn. inagu de waa dambaabnaaye, mar haddaynu dambaabno waa logic ba la cayaaraya. mar haddaynu dambaabno dee intii nebi maxamed waa inaynu ka badinaa. isagu ma dambaabin, intaana uu sameeyey. haddaba inaga dambaa inoo dheere, inagu waa inaynu ka badinaa maxay? intii uu samayn jiray. oo maxaynu samayn? mid baa dabeete wuxuu yidhi isaga ilaahay dembigiisii hore iyo kiisii dambaba uu dhaafay, inaga waxba garan mayne, anigu habeenba seexan maayo waan taagnaanun buu yidhi, salaad un baan ku jiri. kii kale wuxuu yidhi aniguna cunaba waan iska dhaaf, waan soomanaan, soonun baan wadi. midi salaadun baan wadi buu leeyahy. midina wuxuu leeyahay maxay? soonun baan wadi. midina wuxuu yidhi war dumarkan iyo caruurtan iyo waa waxan waxaa diintaba dadka ka mashquuliyeen, guur naageed baa anigu waan dhaafi buu yidhi. zaahid baan iska noqon, haweenintu ka dheeraado, cibaado unu banbaxa weeyaan. dabeetana nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam. nebigu nimankiiba u yeedhay, wuxuu ku yihi antum aladiina qultum kada wakada wakada. war ma idinkaa nimankii waxaa sheegay? ma idinkaa sidaa iyo sidaa yidhi? haaba yidhahdeen. wuxuu ku yidhi markaa ama wallah inii la akhshaakum lilaahi wa atqaakum lah. ilaahay baan ku dhaartee buu yidhi anigaa ilaahay idinku alla ka cabsi badan, idinkuna taqwo badan. alkhashya iyo wataqwa, anaa idinku alla ka cabsi badan oo idinku dhowrsanaan badan. naar wax lagaga dhowrsado anaa idinku badan buu nebigu leeyahy. riwaayadda imaamu axmedna waxay tilmaamaysaa wallahi inii la aclamukum billaahi, anaa alla idinku cilmi badan, wa atqaakum lahu qalba,
idan labada riwaayadoodba taqwo way sheegeen ee midna cilmay sheegtay midna khashyay sheegtay laakiin khashyad iyo cilmiguna waa wada socdaan oo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaau alle wuxuu baabaa cabsida dhabta ka cabsada kuwa maxay ilaahay aqoonta u leh dee nin ilaahay garanayunbaa ilaahay ka baqa nimaan rabbi iyo weynidiisa iyo cadaabkiisa iyo naartiisaba garanayna amase ogeyni dee ma cabsado laakiin ninka rabbi og iyo awoodiisa wuu cabsan saas daraaddeed buu wuxuu nebigu ku leeyay war anaa ilaahay idinku aqoon badan idinku khashyo badan idinku cabsi badan idinku dhowrsanaan badan haddana buu nebigu yidhi anigu waan soomaa waanan afuraa waan seexdaa waanan tukadaa dumarkana waan guursadaa war ninkii jidkayga ka weecdow anigaygama mid tihid buu nebigu leeyay faman ragiba can sunnatii falaysa minii aniga waddadaydii ma haysid weeyaan xadiidkan maxaan u keenay waxaan u keenay istiqaamadu inaanay macnaheedu ahayn wax cusub inaynu iska bilbilowno inu isnidhahdo cibaadada badi laakiin dariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku badi dadka badhna kuwani waa kuwii guluwiga ku dhacay dadka badhna cagsigay ku dhacaan dadka badh ba haddaad tidhahdo war ilaahay waa gafuuru raxiim la soo taagay insha allah ilaahay de waa gafuuru raxiim waxay u badantay dadku intuu wuxuu doono iska sameeyo wuxuu kale de inagu muslimiin baynu nahay leena garantii buu iska sitaa ah inaanu soo cadaab galaynin inagu ilaa muslim baynu nahay ilaahay quraanka wuxuu inooga warramay qisas tiro badan yahuud baa ilaahay ka warramay waqatacnaahum umama minhum as-saalixuun wa minhum waa qaybinay baa la yidhi nimankii yahuudeed markay dembiga galeen waa googoyna dhulka lagu firdhiyey laakiin waxaa ka mida baa ilaahay tilmaamay weli dad saalixiina laakiin haddana ilaahay wuxuu sheegay yuhuudda noocii dambe maxaa ilaahay yuhuud inoogaga warramaya ee qur-aanku waxaan oo dhan uga sheegaya waxaa la rabaa in laynoo tilmaamo inaanu ahayn waxa sheegasho eh inay tahay acmaal annagaa ah abnaaullaahi wa axibbaa'uhu bay sheegteen annagaa 40 casho qurun baaba nala cadaaba inta kale nala cadaabi maayay sheegteen sheegasho inaanu arrinku ahayn qur-aanku wax kaloo laynoo tilmaamay nimanka yuhuudeed haddii dee abtirsiin tahay haddaynaan cidi ka abtirsiin fiicnayn soo ma ogidin waa ilmo nebi israa'iil waa nebi yacquubna waa iyo wayna nebi isxaaqna waa iyo wayna nebi ibraahim 3 nebi cid ku abtirsata waynu garayna iyagaa jooga carabi 2 nebi bay ku abtirsataa soo maaha nebi ismaaciil iyo nebi ibraahim iyaguse waxay ku abtirsadaan maxay 3 nebi haddii markaa nebi iyo rasuul baan galaa ay arrinku tahay yuhuud baa ku guulaysan lahay laakiin ilaahay wuxuu tilmaamay fakhalafa min bacdihim khalfun kuwii hore ee fiicnaa qaar baa gadaal maray baa ilaahay yidhi khalfun duul xun baa gadaal maray duulkan maxaa lagu ceebaynaya ilaahay wuxuu yihi warisu lkitaaba kitaabka way dhaxleen kitaabka waxa dhaxalka loo heliyo waxa dhididka lagu helay weligeedba waa kala nooc saxaabadu diinta maxay ku heleen naf iyo dhiig bay ku heleen naf iyo maalba bay u bixiyeen iyagoo taagan baa raggoodii waaweynaa u dhintay loo wada dhaawacmay hantidoodii ku lumiyeen way ku mintideen markaa laakiin dadkii dhaxalka ku helay aabayaasheen baynu ka dhaxalnay inagu soo maha walaa dhiig baynan ku helin walaa xolaan inaga bixin walaa xaltoona waxaa ilaahay inugu manaystay aabba iyo hooyo muslimiina ina dhalaan oo qur-aan laysaga kala diro dhul muslimaad ku dhasho dhaxal baad ku heshay ilaahay qoladan wuxuu yihi kuwii hore qaar baa ka dambeeyey kitaabka dhaxal ku helay dhaqankoodna maxay yahay ya'khuduuna carada hada aladnaa baa ilahay yidhi dunidan liidata wixii uga yimaada way iska qaataan wayaquuluun waxaanay leeyihin xaraan iyo xalaal ma kala yaqaanin baa la yidhi haddana waxay leeyihiin sayukfaru lana waa naloo dembi dhaafi maba xumo intaad xumo samaysay haddii aad ilaahay xasuusato toobad keentay ilaahay wuxuu leeyahy wan yaatihim caradun milu yaakuduuh haddii mar labaad xaaraantii ay soo martay haddana waa samaynayaan baa ilahay yihi subxana wa tacaala oo waa maxay qofku hadduu xumo intuu sameeyey toobad keeno tooba nasuuxa toobad keeno la geray ilahay waa u dambi dhaaf laakiin kani
intuu wuxuu doono sameeyaa buu leeyahy insha allah ilaahay baa inoo dambi dhaafaya damba kama leh عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وارميان كوا بلن إلهي كقادم كتابك ميان بلن أدق لك كقادم با إلهي ليوه إن أنا إلهي حق مو ياري وحك لك الشيء وارميان كوي كتابك برطيهين با إلهي ليوه وحكو قرأوا هي آخرة ضميسة والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون أيدك حكتا إلهي وحيري والذين يمسكون بالكتاب كوا يو كتابك كل دقيقة يقبصنيا وأقاموا الصلاة سلادنا أوغيا إنا لا نضيع أجر المصلحين كوا وناقة سميني إيقاي تشكود الله من ما يبا إلهي قردي كتابك إنا قبصت اسكو ديسا الددالك كم مغضي سلاد أوغيا والله تشكود الضيع ما يا إلهي لي لكن ما كان انت كتابك دحلين لا وانا لو دنب دافي دونا سيدا wax lagaga heli maayo ayuha laxiba labada dhanna ma banaana istiqaamadu waxa weeyaan xaqana inaad uga dhicin oo inta qulubu kugu dhaco diinta aad ku xadgudbin xaqana inaad u dhicino inta diinta ba sii dayso inaad iska taagnaan oo sayufaru lana labada midna inaad marina inaad marta maxay jidka quman istiqaamada macnaheedu ma hadda biba bandhacaya maaha نبي محمد باوحو لي كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون آدم هو اللي بيوقفه ومن طبعنا قفوا وين قدعيه لكن كو قفوا كدعوا حوفي عن بالليلي هو توبض ضبوضه إلى هيبة محينا يلي فاستقيموا إليه محاكو حقا واستغفروه بإلهي فاستقيموا إليه واستغفروه كوكو من هذا تشتك ربه وهديبه وحيد كان دعانا محي واستغفروه معاذ بن جبل مركو لدردار بين نبيكم محوكو يري اتق الله حيثما كنت ورميل كستو شوكتو ربك كعبسو هديبه وحكا حمادانا واتبع السيئة الحسنة تمحوها ونك دبجي حماها كان عيلا مصحيسين إن الذين اتقوا إذا مسهم إلهي وحلي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كوا الله كعبسك يقوم مناطة لغوية قانا وحا أرقودوا يي هذه طائف من الشيطان متسعدوا الشيطان هدو صومره خواطر شيطانية وحن في عينين بهديكوا صور دعان تذكروا إلهي بحصوصتان فإذا هم مبصرون بإلهي سوابقوا وحركيا aan soo koobnay inaynu toosnaano inaga daniinoogu jirta fawaa'ideeda waxa ka mid ah nabi maxamed wuxuu yidhi ixfad illaaha yaxfadka ilaahay ilaaliya jidkiisa iyo diintiisa ilaaliya maxaa ka ratibmaya adigana ilaahay baa ku ilaalinaya haddaad salaada ilaaliso shaqo lagaaga eriyo ilaahay baa ku ilaalinayo shaqo ka fiican iyo khayr ka fiican ku sii haddaad se tidhaahdo salaada iyo shaqada dee shaqada laga tegi karaya haddaad tidhaahdo haddaad tan rabbi dayacda ilaahina waa ku dayacaya waxba ka keeni maysid meeshaad isku siinamayso asalku waxa weeyaan ilaahay wuxuu kuu ballan qaaday haddaad isaga ilaaliso ixfad illaaha buu nabi maxamed ku leeyahy war ilaahay ilaali natiijadu waa maxay yaxfadka allah ilaahay baa ku ilaalinaysa waad ka helaysa waxa uu nabigu ina leeyahy man salla alfajra ninka salaada subax tukada riwaayada muslim ibnu maajana muxuu yidhi man salla subxa fi jamaacatin salaada subax ninka jamaaco ku tukada fahuwa fi dimati illaahi buu nabigu yidhi kaasi wuxuu ku jiraa ilaahay ballankii inshuranskii nin salaad subax jamaaco kusoo tukaday haddaad dhibdhibto balaayaa kugu dhacaysa iska ilaali waa inshuranska rabbi cid ku jirta haddaad ku warwareegto waa mushkilad idan haddaad ilaahay ilaalisay oo salaad subax intaad timi jamc tukatay ilaahay dimadii baad ku jirtaa cidina wax kuma yeeli karto ha cabsan laa gaal walaa cid kale caruur baynu u baqaynaa iyo kuwa kan war haddaad adigu qumanaato ilaahay tiisa hayso ilaahayna ubadka wuu ku xifdiyey ilaahay fii suurati kahf muxuu inoogaga waramay nin dhintay oo saalix ahaa ayaa ilaahay nebi iyo awliyadiisa mid ka mid a isugu soo daray si ay caruurtaa kanzigooda yare aan uga lumina loo ilaaliyo khidr baa la soo adeegay markaasaa nebi muusena lagu soo daray
dabeetana darbigii dumayey bay u yimaadeen oo way dhiseen. laba agoona hantidood baa ugu jirtay oo aabahood dhintay, waa u dhiseen. markuu ka warramayey Khidir ee ilaahay inooga warramaya muxuu ku tilmaamay? wa kaana abuuhumaa saalixa baa la yidhi. maxaa loo ilaaliyay labada tan? aabbahood baa ahaa baa la yidhi maxay? saalix ahaa. haddaad adigu saalix tahay ha warwari, haddaad si adigu warwareega tahay kuwaana khatar ba usoo hoyatay. haddaad adba warwareegayso kuwaana khatar ba usoo hoyatay. laakiin salaaxaagu, salaaxul aabaa ayaa ilaahay ku xifdiyaa maxay? abnaada rabbi ku xifdinaya. idan haddaynu toosnaano akhriya adduunba waynu liibaanaynaa. haddaynu toosnaan weynana waman yacshu can dikri الraxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka. ninkii waman yacshu, ninkii habeene ka yeesha baa la yidhi. ninkii habeene ka yeesha, si fiican u arki waaye ilaahay dikrigii ka indhala-aada, nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin baa ilaha yidhi. shaydaan baanu u xidhnaa, dabeetana kaasaa saaxiibkuno. haddii shaydaan lagugu daba xidho iska war, awalba taadaad u taag lahayd, mid kaloo kaa daran haddii lagu sii xambaariyo waad lumi. ilaahay baa wuxuu leeyay waman acrada can dikri, aniga xuskay ciddii ka jeesata faina lahu maciishatan danka. waxaynu salaad iyo cibaadiya wanaag uga tagna waxaanu islahayn wax kororsada. ilaahayna wuxuu leeyahay nolol cidhiidhiyaan gelin. waa laga yaabaa adduun badan inaad soo hesho, laakiin inuu adduunkuba ku gubaabay u badantay. ribaad soo qaadato gurigaagu baa dumaya. bal u fiirso, inta badan ninka ilaah iyo rasuulkiisa dagaal la galaa, ilaahay dagaalka meel aanad ogeyn buu kaa qabanaya. waa laga yaabaa in gaadhiga iyo intanaad wadwadato, laakiin meel kalaa lagaa qaban. islaantaa lagugu itixaam, caruurtaa lagugu itixaam, balaayadu meel kalun bay kaa geli doontaa. rabbi ninkii la dagaalamow ka badin kari mayse. aakhirana waxaad iman doontaa baa ilaahay leeyihi adigoo indhala aan waxba arkaynin. qaala rabbi lima xashartanii acma waqad kuntu basiira. ilaahu maxaad iisoo xaadirsay anigoo indhoola ah, waa indhaqabay adduunka marka joogee. qaala kadalika aatadka aayaatunaa fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa. jidka siraad baad adoo indhala isku soo maqiiqi. awalba jid khatar u ahaa, bal adoo indhalaana ku darsada qiyaas. waxaa la yidhahdaa aayaadkaygaa kuu yimi, dabeetana waad ka tagtay. maanta adna waa lagaa tegay baa la yidhi, waa lagu ilaabay. ayuha alaxiba, haddaynu jidkaa nolosheenna ku ilaalino, nabi maxamed baa wuxuu leeyahy ninka hamigiisa hami qura ka dhigo, hamiga aakhire ka dhiga, ilaahay noloshuu u ururiya. ninka hamigiisa hami adduunye ka dhigo, adduun iyo xoogsi iyo shaqe iyo halkaa uun ku ururiya, kaas buu nabigu yihi faraqa allahu shamlah, ilaahay baa ka kala daadiya. wajacala faqrahu bayna caynay, indhahana faqri baa loo saaraa, waa ka kala qubata uno indhahana faqri baa u saaran. walam yu'tihi min addunya ila ma kutiba lah, adduunna kama helo intii loo qoray mooyaane wax kale ma helo. ninkii aakhire hamigiisa ka dhigana, ilaahay adduunkiisana waa u ururiya. man jacala alhumuuma haman waaxida hama almacaad kafaahu allahu saa'ira humuumih. ninka hamigiisa hami aakhire ka dhiga, ilaahay baa humuumta kale kaga filaada. ninkii humuumta adduunye isku tiro badiyaana, ilaahayna waa ku sii daaya dooxooyinka adduunye miduu doontaba naftu ha kaga baxdee. siduu u xiimayo unbay mid naftu kaga bixi doontaa. idan ayuha alaxiba, toosnaanta faa'iidooyinkaasaynu ku qabnaa. warku hadduu bato intii horu idin lowsiinaya, war badanina wuu ii hadhay, laakiin dhowr kelmadood baan idinku soo koobaya. ilahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegayaa wixii inugu kaalmayn lahaa saynu u toosnaan lahayn. aayaadkaasi fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tadqaw inahu bima tacmaluuna basiir walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnaar wma lakum min duni illahi min awliyaa ثuma laa tunsaruun waaqim الصalaaةa طرفي النahaari wزulفa min اللeyl in الxasanaati yudhibna السayiئaaت dalika dikra lلذاakiriin واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم
uluu baqiyatin yanhawna can ilfasaadi fi lardi ila qaliila miman anjaynaa minhum waatabaca aladiina dalamuu maa utrifuu fiih wa kaanuu mujrimiin. dhowrkaa aayadood ee suuratu huud isku xiga haddaad akhrido ayi tafsiiraad ka eegto waxaad helaysaa asbaabta ilaahay uu kaga waramayo lagu toosnaado. iyadoo erayo kooban baan idiin sheegay, idinkaa dib ugu noqonay. ka koowaad waa fastaqim kamaa umirta, ay litibaac, inaad bidca ku dhicin ee toosnaatid. ka labaad waa waman taaba macak, inaad isku daydid muslimiinta inaad dugsatid. shayطaanku waraabuhu wuxuu cunaa buu nebigu yihi inamaa yaأkulu di'bu min alganam algaasiya. idan biica saalixa inaad isku daydid inaad ku noolaan kartid, dadka wanaagsan raacdid, meelaha wanaagsan fadhiisatid, meelaha fadhi ku dararka iyo qurunka iskaga tegtid, masaajidda camirtid. maanta intan baa masaajid ku fadhidan oo ilahay idin soo hagaajiyey. imisa agteenan tuban oo maqaaxiyo ka sheekeynaya meelaan khayr lahayn. ka saddexaad aayaddu ka rab orantay waman taaba macak, toobadda inaad badsatid iyo istikfaarta. nebi maxamed wuxuu leeyahay maalintii aktar min 70 mara aw 100 mara baan toobad keena. waa cadami tugyaan, inaad xadgudbin, itibaac inaad ku dhaqanto, tasayub iyo guluwi midna inaad ku dhicin saynu soo tilmaamay. inahu bima tacmaluuna basiir baa ilahay yiri. inahu bima tacmaluuna basiir. almuraaqaba, inaad ogaatid wax kastoo aad samaynayso ilahay inuu ku arkayo. walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu, cadam arukuuni ila dalama. inta wax dulminaysa inaad u hiilinin. madaxweyne, in adeerka, qabiilka haddaad u hiiliso dulmigoodaad qaadaysa. dadka wax dilaya haddaad u hiiliso dilkoodaad ka qeybtay. walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum naar baa ilaha yidhi. waar ha weecanina kuwa dulmiga samaynaya oo naariyo idin haleeli. aqimi salaata arafi, salaada ooga. intaa waxaa raaco ilaahay leeyahay sabra wasbiruu faina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin. waayo wadada markaad ku toosnaato qodxad badan baad la kulmi, laakiin waxaad u baahan tahay maxay? si aad u suganto inaad sabirtaabaad u baahan tahay. ilaahay subxaanahu watacaala haddana wuxuu kasii waramaya aayaadka ku xiga qiyaame iyo waxaa dhici doona. geerida xasuusnow. haddaad geerida xasuusantay waa toosnaa, waayo geerida garan maysid. gaarigaa ka horeeya inuu shilku geli, tareelle inuu kaaga kor mari, garan maysid. geerida xasuusnow. qiyaamuhu yuu kaa libdhin. haddaad qiyaamaha ilowdo adduununu hortaada yaalo, waagu markuu beriyo barnaamijkaad la soo kacdaa inuu yahay adduunun hadduu noqdo oo aad ilowdo alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur. qofka muminkii markuu soo kaco wuxuu xasuustaa in jaanis kale la siiyey. waxaa mahad leh ilaaha nafta igu soo celiyey geeri dabadeed, isaguna loo noqonayo. wa ilayhi nushuur. qiyaamaha ilaabina. aayadku waxay kaloo ina farayaan waxyaabaha lagu toosnaaday asbaabta waxaa ka mid a alamru bilmacruufi wanahyu cani lmunkar. muxaadaraad badan oo hore duuban waa helaysaan oo asbaab alistiqaama ah ama asbaab athabaati cala diin, labaduba iyagoo duuban bay ku jiraan nadka. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala annaga iyo idinkaba dembigeena inuu dhaafo, dembigii waalidkeen dhaafo, intaynu ka naxayna dembigooda inuu dhaafo, ubadka iyo caruuraha iyo haweenkeen ilaahay inoo toosiyo, dalkeen iyo dadkeena dad quman in alla ka dhigo, dantooda aakhir iyo adduunba in rabbi tusiyo, kuwii toosnaada ee jidka toosan ku toosnaada in rabbi inaga yeelo, dariiqa toosnida in rabbi ina xasuusiyo iyo jidka lagu toosnaanayo inuu rabbi kuwa diinta ku sugma inaga yeelo. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa ku ducaysanaya ilaahu qalbigayga diinta ku sugay, inta rabbi diinta qalbigooda ku sugay in rabbi inaga yeelo. sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. bismi illaahi araxmaan araxiim. alxamdu lilah, asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah. allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaah. wabacd, fasalaamu allahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. darsiga walaaladu tilmaameen in kelimaadka laga yidhaahdo suu sheegay waa alistiqaama. istiqaama haddaynu soomaali soo dhadhoweyno waa qumanaan, inaad qumanaatid, toosnaan.
ereygu qaama buu ka yimi alistiqaama marka waa toosnaan alictidaal walistiwaa toosnaanta maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa iimaanka iyo camalka saalixa inaad ku toosnaatid alistimraariya inaad joogtaysid wanaagga inaad noqonin qof weecweecanaya carabtu inta badan waxay dhahaan ka rawagaani thaclab bay sheegaan waxay yidhaahdaan baasha la yidhahda dawacadu waxay ugaadhsanayso toos uma abaarta bay yidhahdaan way dhabacataa dabeetna way u warwareegtaa bay yidhahdeen sidii waxaan toos u soconin waxaa laynaga reebayaa markaa weecweecashada waxaa laynaga rabaa inaynu qumanaano oo diinta ku qumanaano oo ilaahay jidkiisa ku toosnaano ilaahay intaynu rabbi kala kulmayno qumanaantu waxay u baahan tahay dadaal badan iyo aqoon iyo cilmi walidalik baa waxay yidhahdaan min طabci اlinsaan aadanaha dhaqankiisa ama abuurkiisa waxa ka mida bay yidhaahdaan atadabdub sensidual inuu socdo weecweecasho bini aadamku bay yidhaahdaan dareemadiisa iyo noloshiisa inuu joogteeyo waa ku adagtay wuxuu doonaba ha noqdo shaqo ha noqoto mashaacirta iyo dareenka iyo ixsaaska ha noqdo nashaadaadka iyo activitigaad qabanaysa ha noqoto bini aadamku joogtaynta inuu waxaa joogteeyo wax fudud maaha soomaaligana isaga dhagaxba kaga adag maxaa loo joogtayn kari waayey kow waa mowduc alimtixaan waa meesha laynagu itixaamay ee la rabo ma ku guulaysanayna mise waa ku dhacaynaa sidaa laynoo abuuray waxaana lagu talagalay in layna itixaamo aadanuhu wuxuu leeyahay shahwatu nafs waxyaabadanoo naftu ay jeceshahay waxaa kaloo ku xeeran shayaaiin اljini walins kuwa dadka lumiyo badan oo bini aadamkana ka mid ah jingana ka mid ah bini aadam dadka lumiyo tiro badan ayaa kugu xeeran shayaankii shayaanka ahaabaa kugu xeeran haddaba intaasoo dhan si aad uga guulaysan lahayd baa isweydiinta leh waxaana laynaga rabaa inaan naftu inaga bixin ilaayo inagoo muslimiina mooyaane laba aayadoodoo fii kitaab illaahi ku yaala suurata ali cimraan iyo suurat albaqara ilaahay muxuu leeyahy fii suurati albaqara yaa baniy in allaha اصطafaa lakum اddiin falaa tamuutunna ila waantum muslimuun fii suurati ali cimraanna ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ila waantum muslimuun falaa tamuutunna iyo walaa tamuutunna ila waantum muslimuun ilahay wuxuu ina leeyahay ha geeriyoonina idinku aan muslim ahayn geerida we don't know garan mayno goora imanayso adoo sii socdaa gaari ku jiidhi ma wadnaha iskaa taagi ma maalmaad soo bukaan doonta garanaysa saaad u dhimanayso mar haddaanad garanayn saaad u dhimanaysa macnaheedu waxa weeyaan noloshaada toosnow ha geeriyoonin baa lagu yidhi adigoo maxay aan muslim ahayn yay geeridu kuu imanin wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ba fii suurati alxijrina ilaahay leeyahy rabbigaa caabud inta geeridu kaaga imanayso haddaba maadaama ay noloshu sidaa tahay waxaynu u baahan nahay inaynu in badan ku xisaabtanno war ma toosan nahay in badan inaynu isweydiinno aqoonta ah sidee loo toosnaada in badan isweydiinno waa maxay asbaabta kugu dhiiri gelinaysa ama kugu xejinaysa inaad toosnaato weliba cajabta nafta waxaa ku tusi kara nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay basharka kuu ka doortaya ayaa waxay saxaabadiisi tilmaamaysaa umu salame iyo anas ibnu malik iyo waxa ay tilmaamayaan saxaabadii nebi maxamed ducooyinka nebi maxamed umu salama markii la weydiiyey gurigaaga markuu joogo waxa ugu badan uu nebi maxamed ku ducaysta waa maxay waxay ducadan soo socotay sheegtay anas ibnu malik wuxuu isaguna leeyahay yuksir nebigu wuu badin jiray inuu yidhaahdo maxay yaa muqaliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinik ilaaha qalbiyada gegediyow yaa muqaliba alquluub
إله قلبي يدك قديو ثبت قلبي على دينك قصق دين هذا قلبي يقبل النبي محمد كدو عيسانية إله هو وعشضة يقال إله إله هو السق سيدا بدن ثباتك إيوه استقامته اسكو معنى دو بيت المامية مركز الصحابة وحي يا النبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا وانو كن رمينا هذا iyo wixii aad la timi ba waanu rumaynay ma waxaad nooga cabsi qabataa wax miyaad nooga cabsi qabtaa wax kale wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa su-aasha dad badan rag badan baa isle haddaad waa diintana waad garanaysaa ilaahiyna waad garanaysaa maadaa gaaloobaya ama maadaa xumaanaya wadaado badan baa dhulkan yimi oo is yidhi waa riyaad saalixiinka iyo qur-aankaba waad soo dhigatay ma gaal baa wax ku yeelaya rag badan baa libdhay oo aan lahaynin imika meelay ku dambeeyeen sababta waa maxay naftooday kalsooni bideen waxay is yidhaahdeen war waad isku filan tahay badda se markuu dhumbaday uu isku filaan waayo markii badda nin waliba yimi isku filaanshihii waa la waayey saa daraaddeed bay saxaabadii waxay leeyihin ilaahay rasuulkiisiiyo waanu ku rumaynay wixii aada la timina waan rumaynay miyaad noo cabsi qabtaa nebigu wuxuu ku yidhi nacam ina alquluuba bayna isbacayni min asaabici illaahi yuqallibuha kayfa yashaa waa idin cabsi qabaa buu nebigu yidhi oo qalbiyada bini aadamku labada farood ee allay ku jiraanoo siduu doona buu u rogrogaa siduu doona u rogrogaa waa maxay haddaad wanaagga u janjeersatana ilaahay waa kuu kordhinayaa haddaad xumaha u reebtana falamaa azaaquu azaaqa allahu quluubahum taa kugu dhacaysa markay weecdeen ayaa ilaahay qalbiyadooda weeciyey sidaa awgeed ayuha alaxiba bal u fiirsan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay qur-aanka inagala hadlaya oo waxaa la leeyahay wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayka litaftariya calayna gayra waidan latakhaduuka khaliila walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shaya qaliila idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat ثم لا تجد لك علينا نصيرا سبحان الله waxay ku dhawaadeen baa ilaahay leeyahay nebi maxamed oo ina ku fitneeyaan can iladii awxaynaa ilayk waxaanu kuu soo waxyoonay shayaaiinuljinni iyo insigu inay kuweydaariyaan bay ku dhawaadeen litaftariya calaynaa gayra si aada noogu kor abuurato waxaanu kuu waxyoonay waxaan ahayn hadday dhici lahayd inaad xaggooda u soo yaro weecatana latakhaduuka khaliila baa ilaahay yidhi saaxiib bay kaa dhigi lahaayeen yacni gaalada ilaahay wuxuu tilmaamaya waxay isku dayayaan inay ku lumiyaan haddii aada markaa weecato dhankooda u weecatana walan good waa lagu soo dhaweynayaa nin qoyska ku soo biiray ayaad ka mid tahay baa la leeyahay ilaahay baa markaa nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walowlaa an habatnaak haddii lala-yay inaanu anagu ku sugnay baa ilaahay leeyahy laqad kidta tarkanuu ilayhim shay-an qaliila waxaad u dhowaatay inaad in yar xaggooda u weecato haddii nebi maxamed ilaahay sidaa ka sheegay cidda nebi maxamed ka sokaysa maxaad ka fili sheekh iyo shariifba haddii nebi maxamed ilaahay sidaa uu ka tilmaamayo ciddii ka sokaysay nebi maxamed maxaad u malaynaysa ilaahay markaasuu leeyahy idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat haddaad shaygaa raaci lahaydna waxaanu ku dhadhansiin lahayn baa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala cadaab nololeed iyo mid aakhira iyo mid walba ood dhadhamin lahayd wax nooga kaa gargaarana maad hesheen haddaba ayuha alaxiba waxaa laynaga rabaa inaynu toosnaano oo ilaahay wuxuu ina leeyahy walaa takunuu kalatii naqadat gazlaha min bacdi quwatin ankaatha carabtu waxay sheegaan habar mooyine waa laydyan wax u dhinmeene habar bay sheegeen gelinka hore wax tidci jirtay xadhkay soohi jirtay gelinka dambena shaqadeedu waxay ahayd inay furfurto marka maalin walba waa shaqo joogta ah gelinka horena waa tidicdaa gelinka dambena waa maxay waa furfurtaa ilaahay baa tii ugu maahmaaho ilaahay wuxuu yidhi walaa takunuu ha la mid noqonina kalatii naqadat gazlaha min bacdi quwatin ankaatha tii gelinkii hore tidicdaya toshay gelinkii dambena furfurtay taa ha ku biirina baa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala ayuha alaxiba
dadka badh baa acmaal saalixa sameeya dabeetana istus iyo ismaqashii iyo macaasi iyo kabaa'ir ku buriya. qaar baa waddada saxaa haya kadibna raadkoodii dib u raacuno munaafaqnimo iyo ridda ku dhaca walciyaadu billaah. waxa isweydiinta leh toosnaantu waa wax adag, weliba da-yarteennina dhib baaba haysataa. intay dhowr iyo 10 jir ka yaryihiinna qadaadkaynu haynaa, qur-aanka qayb malcamada tag, qur-aanka qayb baynu ku wadnaa. dhowr iyo 10 jir markuu gaadhana masaajidka mabuu baalmara, qur-aan qaybisiyo baabka iska dahay. hadduu qaybayna waa ilaabaa, haddaanu qaybin awalba waxba kama qaybin, uu dhinac mara. xaggay beledu ka taagantay marka? nabi maxamed baa wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, waxaa dhici doonta waqti yusbixu arajulu mu'mina, ninku ay dhici doonto inuu waa beristo isagoo mu'mina, wayumsi kaafira, uu galabaysan doono isagoo kaafira. gelinka hore waa mu'min, gelinka dambena waa gaal. cajab. gelinka hore waa mu'min oo ama salaad buu tukaday, ama gelinka dambena acmaal lagu gaaloobayuu wadaa. yani toosnaan dadkani ma laha. wayusbixu kaafira wayumsi mu'mina, waa berisanaya isagoo gaala. haddana yani waa maxay? islaamnimadaanu ku qumanaanaynin, gaalnimadii iyo islaamnimadii buu dhex socdaa. yabiicu diinahu bicaradin min addunya. maxaa ku kalifay? diintiisa ku gadanaya in yaroo adduunye ah buu nabigu leeyahy calayh isalaatu wasalaam. diintiisii ayuu ku gadanayaa maxay? adduun yar. idan waryaadhan toosnaanta wax fudud maaha. inaad naftaada iyo shaydaan iyo jin iyo insiba dagaal la gashaa, haddana aada warmooga tahay, wax fudud maaha. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa qaar culamo ahaa, culamo waaweyn oo ka siibtay ilaahay kitaabkiisii. watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbachu shayطaan fakana min alghaawiin baa ilahay yihi. waxaa dadka ku akhridaa xasuusisaa baa ilaahay yihi warkii kii aanu siinay aayaadka iyaga baa ilaahay leeyihi. culamada badh baa yidhaahdaa nin mustajaabu dacwo abuu xataa ahaan jira, ismullahi lacdam ku yaqaanay bay qaar sheegaan. wax kasta haato, waa nin ilaahay aayaadkiisii la siiyey, wax garanayey. isagoo wax garanaya ilaahay muu odhan muu noqdayo, waxaa idhi fansalakh, waa ka siibtay. kaanamaa haragga, neefka marka haragga laga saarayo soo lagama siibo, kaanamaa war kitaabkunu leeyahy war soo joog. isna uu maxay ka muruxsanayo. faatbacahu shayطaan baa ilahay yihi. shayطaan baa raacay, isagii baaba macallin noqdo, shayطaanku daba socda. fakana min alghaawiin. idan ayuha alaxiba, nabigu calayhi الsalaatu wasalaam duul buu tilmaamay. intay camal wanaagsan sameeyaan camalka ahlu janna siday u wadaan, marka dambun dib uga noqonayo camalka ahlu naarka samaynaya oo naarta lagu tuuri doono. haddaba ayuha alaxiba, qof kastoo mu'mina oo dunida jooga, umniyaadkiisa waxa uu rajaynaya 2 shay baa ka mid ah. cimri dheer iyo camal wanaagsan baynu jecelnahay. qofna ma jecla in la yidhaahdo nafta hadda ha lagaa qabto. qof waliba in la ziyaadiyo bahashaasi oo aan hore loogu imanin buu jeceliyay. isla markaa qof waliba wuxuu jeceliyay camalkiisu inuu maxay. waxaanuu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam, khayru الnaasi man طaala cumruhu wa xasuna camaluh. xadiiska tirmidi, sheekh alalbani saxiixa ku tilmaamay, dadka waxa u khayr badan ninka cimrigiisu dheeraado, camalkiisuna wanaagsanaado. haddaba ayuha alxiba, garan maysid cimrigaagu inuu dheeraanayo inuu gaaban. garan maysad khaatimadaadu waxay noqon doonto. laakiin haddaa waxaad garanaysaa inaad jidkaa iska saaraatid oo ku toosnaatid, lacalla adigoo qumanuunin mar naftu kaa baxde. lacalla mucawiqaadka, waxyaabaha dadka jidka weydaarayaana waa tiro badan yihin. nabiguna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa maalmaha dambeeya ayaamu sabriga la yidhaahdo, diinta qofka haystaa uu kontan idinka idinla mida la ajar yahay baa la yidhi. baahanta ilahina qur-aanka wuxuu inagu leeyahay, faاstaqiimuu ilayhi wastakfiruuh. waryaadhan xagga rabbi u toosnaada.
faاstaqiimuu ilayh wastakfiruuh wixii dembi idinka dhacana ilaahay subxaanaه wa tacaala dembi dhaaf weydiista. qur-aanka 2 meeloodoo ka mid ah ayaa waxaa ku soo arooray dadka ammaan la ammaanayo iyo ajarka ay leeyihin weynidiisa si laynoo jeclaysiiyo. oo waa maxay? ina aladiina qaaluu rabbuna allah, kuwa yidhaahda baa ilaahay yidhi allah noo rabbiya, rabbigayo waa alle. uma istaqaamuu baa ilaahay yidhi, dabeetana ku toosnaada weedha allah ii rabbiya. macnay sheegaysaa, macnaha ku toosnaada baa ilaahay leeyihi. kuwaas malaa'ig baa ilaahay ku soo dejinaya, malaa'ikatu raxma. oo maxay leeyihiin marka nafta laga qabanayo 2 shay baa qofka bini aadamka markuu dunida ka baxayo warwar ku haya. meesha uu ka tegayaa warwar bay ku haysaa, oo talow caruurtii iyo reerihii iyo dadkii iyo maxay noqon. ilaa adduunku isku dhamma ma lehe, maraad sileeday shaqadii waa dhammaysay yaa nafta kaa qabta ma jirto. mar kasta oo wuxuubaad sileeday war waxbaa dayacane, talow siday noqon kuwani. waxaad kaloo ka warwaraysaa oo kaaga sii daran, war talow maxaa kaa horeeya, war wixii aad samaynaysa alla ma kaa aqbala, war ma kuwa naarta aad noqon mise kuwa jannada aad noqon, xaalkaa siduu noqon. warwar baa kugu jira. ilaahay wuxuu leeyahay dadkii toosnaan jiray malaa'ig baa u imanaysa u bushaaraynaysa. maxaa loogu bushaaraynaya? anlaa takhaafuu walaa taxzanuu, ha cabsanina oo waxa idinka horeeya ha ka cabsanina baa laleeyahy. kuwa nabadgala ka midti. ha tiiraanyoonin oo wixii aad ka timi ha ka murugoonin baa la ydhahaa. rabbigood bay leeyihin. waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun, jannadaan idiin ballan qaaday ku bushaaraysta. fii suurati alaxqaafna sidoo kale baa ilaahay leeyihi ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu, kuwa yidhi allah noo rabbiya ee ku toosnaaday falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun baa ilahay. cabsiyo korkooda maha oo waxa soo socda kama cabsanayaan. walaa hum yaxzanuun, murugiyo tiiraanyana ma hayso oo wixii ka tegay ka murugoon maayaan. ulaa'ika asxaabu اljannati khaalidiina fiiha jazaءa bima kaanuu yacmaluun baa ilahay yihi. kuwaasi waa reer janno, waana ku waaraya iyadoo lagu abaalmarinayo wixii ay soo camal fameeyeen daraaddeed sababtii. waxaa ilaahay qur-aanka inoogu sheegayaa taasi waa aakhiro iyo waxa la helayo. adduunka ilahay wuxuu ina leeyay waan low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maaan gadaqa linaftinahum fiih waman yucrid can dikri rabbihi yasluka cadaaban sacada. hadday ku toosnaadaan baa ilaahay leeyahay jidka rabbi, hadday ku toosnaan lahaayeen waxaanu ka waraabin lahayn baa ilaahay leeyahay biyo badan oo yacni badhaadh iyo barwaaqaanu ku noolaan lahay. roob iyo abaar iyo mushkilada waxaynugu itixaamay, toosnaantii baa laynaga waayay. haddaad toosnaan lahaydeen baa ilaahay leeyahy waa laydin badhaadhayn lahaa, biyaha waa ka dhargi lahayde. laakiin adduunina mar kastaba imtixaan ya haddana alla waxaynu noo sheegay marka layna dhargiyana ilaahay wuxuu yihi linaftinahum fiih. isaga laftiisu waa imtixaan kale. inta badan bini aadamka muslimka ahay imtixaanka dhibta ah wuu ku toobad keenaa, faqrigiisa u muuqda. marka dhibtu ka qabsato yaa rabbidaa badata, dheragta si rabbiba waa la ilaabaa. inta badan labada imtixaan, imtixaanka dheragta khatarsan. imtixaanka dheragta kibir baa bilaabma, iyo qooq iyo balacab iyo kibir oo dhan baa bilaabma. soomaalidana waa taqaaneeno xataa colaadahooda iyo dagaaladoodu markay abaartu dhacdo way isu nasan jireen, ya allah bay odhan jireen. marka gugu u da-ana rabshadaa bay bilaabi jireen. ilaahay wuxuu ina leeyahay markaas linaftinahum fiih waman yucrid can dikri rabbihi yasluku cadaaban sacada. ninkii ilaahay xuskiisa ka jeesta waxaa la marin oo la gelin cadaab adag fuuritaankiisu. haddaba ayuha alaxiba, ilaahay wuxuu ina leeyahay isagoo nebi maxamed la hadlaya 2 aayadood oo kale, fastaqim kamaa umirta. fastaqim kamaa umirta baa ilaahay nebigu ku yidhi. wastaqim kamaa umirtana fii suurati shura bay ku jirtay. fii suurati huud ilaahay wuxuu ku yihi fastaqim kamaa umirta waman taaba macak
walaa tadqow u toosnow sidii rabbi ku amray. hadda waa nebi maxamed cidda lagu leeyahy. suuratu huud aayaadkan intaan laga warramin aayaadka ka horeeya wixii nebiye soo qabsaday baa ilaahay ka warramay. nabiyullaahi nuux, nabiyullaahi ibraahim, nabiyullaahi saalix, nabiyullaahi shucayb, nabiyullaahi luut, nabiyullaahi muusa. waxaasoo ambiyaaba qisaskooda ilaahay kaga warramaya. nabiyullaahi huud iyo tolkood wixii kala qabsaday. markii ambiyadaa laga warramay iyo wixii lagu sameeyey iyo wixii la kulmay iyo waxay dhib arkeen